السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا بلشذا يقول حنا دمانتين. waxaan rabaa inaan su-aal idin weydiiyo inaan su-aal idin weydiiyaan ba u baahanay shacabka reer somaliland. shacabka reer somalilandow dad baynu dooranaa, cid baynu durbaantunaa, maalin walba nin baynu dooranaa. horta ma lahayaa xisbi inuu waddanka wax ka qabanayo ka sheekeeyey manifestiin soo bandhigay waxaasaan qabanayaa ilaa ay doorta unbay yidhaahdaane ma haysan horta. xisbiga waxaan rabaa inaan baadho xisbiyada cusub xitaa bal xisbiga ka hadlay danta dalka le halay doorto waxaasaan qabanayaa, waxaasaan bedelayaa, caafimaadkaan bedelayaa, iskuulkaan bedelayaa. waayo nolosheennu waxay u baahan tahay bayska u hooseysa in laga soo dhiso. run baana idiin sheegayaa waxyaalo badan ba dalka somaliland u baahan yahay. kow wuxuu u baahan yahay in waxbarashada lagu qabto gacan oo dadkan iskuullada barayfadka la yareeyo, oo tayada ardada la kordhiyo, la kobciyo, oo wax walba la qabto ayay u baahannahay. uma baahnin inaynu idhahno okay hebel baynu dooranaynaa, hadhow waxaynu idhahnaa jugjug meeshaada joog, halkiibuu joogaa, haa wuuna xumeeye, haa hebel u bixiya magacyo xunxun bilaayanu la dabagelaynaa. marka miyaynaan u baahnayn marka u horeysa inaynu nidhaahno bal horta maxaad qabana, aynu buug ku qoro wuxuu qabanayo oo aynu waxqabad ku raacno aynaan kuba raacin qabiil. arrintaa maxay idinla tahay? anigu horta arrintaas iga fiican. horta anigu 3 bilood inaad madaxweyne ma iga dhiganaysaan, may 6 bilood, may 3 ugu yartay 6 bilood, ya 6 bilood kula madaxweyne iga dhigta. anigu waxaan idin qaban lahaa ma garanaysa. horta iskuullada si ay u dhan yihiin waan xaadhi lahaa. maalin walba waxaa la soo saarayaa intaasoo arday baa qalin jabinaysa oo haddana bilaataya ah. gebigoodaba iskuul dowladeed baan ka dhigi lahaa. barayfadkana tootali waan joojin lahaa. kuwa dowladda mataqaanaa waxaan u qaybin lahaa boodhan, waxaan u qaybin lahaa kuwa caadiya. waxbarashadana manhaj cajiiba oo la raaco oo adag baan ka dhigi lahaa. hadda waa taasi may maqasheen. ta kalaa soo hadhay dhakhtarka. waxalaale waxaa dhakhtarka jooga waxaan u samayn lahaa barayfadkoo dhan waan tirtiri lahaa. magaalo walba hal dhakhtar oo weyn baan ka dhigi lahaa dowladdu leedahay. maxaa soo lantaa qalab kastoo ay u baahan yihiin nimanka dhakhaatiirta oo dhanna itixaama kasoo wada qaadi lahaa, dibadahan itixaamka ka soo qaadi lahaa. waxba hadda may maqlaysaan. waxaa laaliya waxa dunyaale waxaasaan samayn lahaa. dhag nin dhakhtar caadi ah oo midda kale qalabkan u dhammaystiri lahaa. waddankeena dhakhaatiir way jirto laakiin qalab ma haystaan, moogta qalab ma haystaan. qalabkan u dhammaystiri lahaa. warnimo yahow dad caafimaadka inooga shaqeeya inoo raadiyo, oo waxbarashada inooga shaqeeya inoo sheego, oo bulshada wax uga shaqeeya, oo dadka maatada iyo dadka baahan iyo dadka beeraleyda waxa ka shaqeeya in madaxyal inoo doora. hayna ceebaynine maalin walba hebel dooro waxay ma jiraan. hebel dooro waa jugjug meeshaada joog, hebel dooro waa halkiisii. dee miyaa ku jiraysaan waaye inagu weligan ma durbaan beeraad tumaysaan? haddii kale inoo daayo madaxdeenu markay ina qabsato wixiina iska walaaqda oo markay madaxdeenu ina qabsato. anigu raashinkana waan ka joojin lahaa. raashinka businesska ah waan ka joojin lahaa. beertaan oran lahaa galleyda iyo haruurka iyo bariiska beerta. war hadda may maqlaysaa? warka saasaan samayn lahaa. anigu waxaas samayn lahaa cuntada kow ka antaroon saliidda oo kale waan ka joojin lahaa. oonta xoolaa cunaan lahaa, kulis ku darsado heenka samaysta oo wax walba ku cuna cuntada. waxaan ka joojin lahaa, waxaan ka mamnuuci lahaa saliidba waddankaba saliid baan ka mamnuuci lahaa. oo wax walba saliid baa ku darsanaysaan bash bash bash. xoolihii halkan xoolihii cuntadii xoolaha waxay maynu cuni jirin halkaa joogtaa wax walba ku darsanaysaan. in madaxyaal meel khalad ahayn war naga soo raaca. in madaxyaal waxaan leeyahay hawsha wax inoo sheegaya wax inoo soo doora. waxaan soo baarayaa xisbiyada la wada waraystay 7 xisbi hadda sharaxan. kuwa 3 hore waan garanaya iyaga, kuwa dambe ee la sharaxay bal mid aynu xooga saara. anuu qabyaalad kama guro, qabyaaladana ma khusayso aniga. waxay u khuseeya qofka Somaliland wuxuu qabanaya, qofka shacabka wuxuu qabanaya, qofka maatada wuxuu qabanaya ayaana iga khuseeya. ee wax qabad ii sheega. hadda may maqlaysaan? warku waa dhan yahay. warku halkaasuu ka dhan yahay. waa halkii daa udburcaawe may maqlaysaan? hadda may maqlaysaan? war waxaan kuli warku halkaasuu ku dhan yahay. in madeerayaalow tolow iyo xididow inaga daya qabyaalada.
inoo sahamiya waxaynu meelaynu marka madaxa aad doorataana magac wanaagsan ula bixiya magac wanaagsan oo qiimo leh oo fiican oo macquula oo dadka dee soo jidanay oo ducaa u bixiya markaa mid doorataan baa magac xun ku dhajinaysaan oo sidii buu noqonaya magaca wanaagsan waa sadaqo ducadu waa sadaqo ilaahay oo madaxda noo hagaaji ilaahay oo madaxda noo barakee ilaahay oo madaxda wanaagoodana tus baa la yidhaahdaa habaar ilaahay baa qabtaane yaa soomaydin fahmin wanayo midna waxaan weydiinaya reer wadani mid baan reer wadani weydiinaya reer wadaniyo horta xisbadii waa la furayaa xisbigii waa la xiriyaa gala doorashada dadkan meedyaha idinku jirana barka fiirsada hadda anigu waxaan la garan waayay reerkii ciidan kala ahaa gacan libax guddi iyagaa madaxeedina waa cadda guday inama halka joogo saddexa iyaga halkale ka qayliyaan oo idinka dabba idin geliyaan holciyahay bay ka dhigeen in maadeerayaalo waxaa idin weydiiyey reerkii reabtay ee habar yoonis hargeysana waa diidan waxyaa laga mudaharaadi maayo xabadna ka ridi maysaane ka durka anagu ciidagalana la yidhaahdaa kow isxaaqna waa ku raacay waa labo dee meeshaynu ku soconayna waa hargeysa mutaharadka dowladda halkaasi joogtay dowlad kale meel kaleba joogtay miyana muuse kula dagaalamayaan kursiga miyana madaxtooyadaha meeshaynu ku soconay hadday reerkaas idin diideen xaggana dagaal idinka gelinaya maxaa horta meel idinka yaal habar yoonisa arrintaa bal ma baadheen madaryaalo anigu yaabaye dad dhinacna kaa gubaya dhinacna kule buus anigu ma fahminba kaana maan fahmina bal iga si jawaaba aadna waan idiin salaamayaa anigu waxaan leeyahay codka ciro cod buu u baahan yahay ciro dadku wanaagsan buu u baahan yahay ciro dad si wacan u doorta u baahan yahay ciro dad cod u raadiya buu u baahan yahay abtigay ka daaya ciyaarta oo la ciyaarina kafta waa runbaa kaftankii baa runa ka dhigteenbe xaggana ka kahay lacagta islaamiga laga shubay wixiiba ma jiraan wixiiba meesha bishaale waxaa reerka ugu dagaalka badan leh habar somaliland difaacana waa iyaga habar yoonis waan yahay baa anigu reerka waxaa la waligay ma aragnin habar yoonis halka taagan oo leh somaliland ma rabnaa ma somaliland ma nihama wax ka sheegaya anigu maba arkinba to bise reabtagii weyota ilaahay bay madsuxmaantooda maba arko anigu wallaahi dad gobaan u aqaana dadka ugu dubaalada dheer hadda tiktokta meelaha ka doobiyey saa ku doobiyana waa iyaga anigu garan maayo reerka kale meesha xag walla idinkama ogolaa maxaa dagaal la diidee ilaa wadamada kale dagaalma yaalee ceerga xumayaan dowladii ma joogto burca dowladii ma joogto berbere ma joogto waa hargeysa meeshaynu ku soconay taargetkeenu haynaynu madaxweynaha muuse bixin madaxtooyada ugu tagnee hadday diideen isxaaq iyo ciidangaleba dee haddaba aynu iska nafisno cod doonano annaga aynu dooranayna cod ha loo raadiyo ciro halana soo sharxo sardambe guddoomiyana xirsi ha iska soo celiyo war waa idin salaamayaa kaftan wanaagsanaad baan idin salaamayaa dhammaantiinba waan idin jecelahay